Salam alaikum. Today we are going to continue from our previous video about visiting the GP. Salam alaikum. Maanta waxaan ka sii wadaynaa marka GP-gaaga aad soo booqanaysid videogii hore aan ka hadalnay ee ku saabsanaa booqashada GP-ga. To do this, I will play the part of the doctor, Dr. Smith. Sida saas lagu sameyn lahaa, asaga wuxuu noqonayaa Dr. Smith ayuu noqonayaa. And she will play the part of the patient, Mrs. Omar. Aniga waxaan noqonayaa Mrs. Umar, qaybtaas oo meeshan ka ciyaarayo. Hello, Mrs. Omar. Please sit down. Salaam alaikum, Mrs. Umar. Fadlan fariiso. Can you explain why you have come to see me today? ii sheeg maxaad maanta iigu timid ama maanta maxaa iigu timid ii sheeg. Dhakhtarow, aniga waxaa i xanuunayo dhabarka, jilbaha iyo madax xanuun. Teeda kale waxaan kaloo dareemaa daal fara badan. Teeda kale shalay baabuurka ilbaabkiisa ayaan waxaan ku qabtay fartayda, fartana waa wada bararan tahay. Well, doctor, I have been having pain in my back, my knees, and I have been having a headache. Also, I feel very tired all the time. And yesterday, I trapped my finger in the car door and it's all swollen. Okay, Mrs. Omar. We only have 10 minutes. Please tell me, what is the main problem that you came to see me with today? waayahay Mrs. Umar, waxaan haysanaa 10 daqiiqo keliya. Fadlan ii sheeg dhibaatada ugu weyn ee maantay aad iigu timid. Hal shay keliya maan ka hadli karaa. Can I only talk about one thing? Well, tell me the main problem that you have. Waxaad ii sheegtaa dhibaatada kuugu weyn ee adiga qabtid. Waxaan u malaynayaa fartayda inay tahay dhibaatada ugu weyn. Well, I suppose it is my finger that is the main problem today.